baarlamaanka dalalka carabta ayaa soo saaray digniin culus oo ku saabsan doorashada la filayo in sanadka cusub ay ka dhacdo dalka Soomaaliya ay weli muranka xilligan uu ka taagan yahay. Bayaan ka soo baxay baarlamaanka carabta ayaa looga digay dalalka deriska la ah Soomaaliya iyo kuwa gobolkaba inay faragelin ay ku sameeyaan doorashada Soomaaliya. Bayaanka ka soo baxay baarlamaanka carabta ayaa lagu yiri diidmada dhammaan faragelinta ay qaar ka mid ah dalalka deriska la ah Soomaaliya iyo qaar ka mid ah gobolkaba ay isku dayayaan inay carqaladeeyaan howlaha doorashada la isku afgartay qaab dastuuri ah. Sidoo kale baarlamaanka carabta ayaa ku nuuxnuuxsaday inay xoogga saarayaan amniga, midnimada qarannimada iyo weliba badqabka dhuleed ee Soomaaliya iyo taageerada dalalka carabta iyo weliba beesha caalamka ee horumarinta iyo deganaanshiyaha Soomaaliya. Dhanka kale waxa ay baarlamaanka carabta ay xambaareeyeen weerarkii ka dhacay caasimadda Muqdisho 27kii bishii aynu soo dhaafnay ee November iyo dhammaan weeraradii ka dhacay bilaha November iyo December ee sanadda 2020 kuwaas oo dad badan ay ku dhinteen iyaga oo ku celiyay inay garab taagan yihiin Muqdisho dagaalkeeda ka dhanka ah argagixisada. Bayaanka ka soo baxay baarlamaanka carabta ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay jiraan tuhun ku aadan faragelin ay doorashada Soomaaliya ay ku hayaan wadamo ku yaala qaaradda Afrika iyo kuwa ka baxsan oo ay ugu horeeyaan kuwa carabta.